تحديات خارجية جرة أو تجهيل الأمة كسادو قبيس سلو قميستو وين قنطر الله هيا كسلو قميستو وين للتجويعية هذا مدى حيرتها كان وين لقاتشيسية أنا قبضتين قالا ودنا كان لقوا سورجي وحمل لقوا سورجي كسلو قميستو وين لبطشية وين لبقجلية هذا سيل ويدان بريس قال لي كشرية وحمل لي كشرية وكل لي كيبين مايو وقال لي قبضتين يا دول المارق قبضوا بيرسة دولتها شيطان كاه رجبا قانون كاي حوق كاي وحاول استيو كنت لقلينا هيان سيقوا الربان وحصوران لكن أنا وحن رباينا حرة هذا مين اللي حروبنا عقلي وفي عن مركب كوات على شيء كحر ودين عقلي كحر وده وكرر مركب عقلي كحر وده وده على شيء كحر وبكرته حنوبا هنا مركا تحديات كخارجية أما تشالنجز كده بدك كي مني أنا كحرونه تشالنجز كده بدك كي مني يواجه هره دول بوح وميسنشري وحقوق بسنشري إمك يدبون وصدق قرآن شده هذا وصعدان قرآن شده محي ويتمر يرتي لكن حقيقة صواب حدا مالك استوت شيحان وبيفوت كصورة مساعدات سكجو فينين دي بلشده تسدع عاده بلشده هذي بربرته قرآن شده دبا كصورة حدا بلشده الصومالية دوي بربرته كل جرالي بي بربرتي دولة نمي بربرتي رقم با بربري دين با حتى بربري ضد نمدي دي با بربرتي بقاله دي با بربري وحكستاي سوق على توي بربرتي dadkii dabadda ka ahaana way ka soo dhex tooseen inta laynaga dhex toosay ee dawla taxta dhilli ba talisa dawladda hooska waxay yiraahdaan halka ay wasaaradaheena oo dhami NGO-ya hoosta kaga naban iyagu masruufa bulshadeena oo dhan ma tujaarteena ma waxeena oo dhan balaayo kala hoosta kaga mudan oo dhaqaale ahaan ku hogaamiya waxaynu noqonnay dad keenada loo hayo keenada soo ma taqaanin awrka de xadhiga marka lagu xidho keenada la xidho ee loo faruur xidho waa la wadaa dumada xayargi jeena faruur xidh loogu dara maca faruur xidhka ay nagu xidhan bulshada dadka ugu badan ee bedeli karaana waa aqoonyahan hadduu aqoonyahanku yahay mid qandiilka toojka midu sida ummadda hadduu noqdo aqoonyahanku waa qof dadka u ifinaya jidkay mari lahaayeen aqoonyahanku waa mid dadka u ilaalinaya kaljarkooda wixii san iyo dhaqan iyo diin ay leeyihiin ilaalinaya oo ka ilaalinaya in cid kale soo gasho aqoonyahanku waa mid isku dayaya ummaddu waxa xun ay haysato mid duminaya hadday qabiiltay hadday mukhadaraad tahay hadday dhaqan xumo kala tahay hadday ammaano darro tahay waxa laaliya waxa bulshada inay horumarto kor u ruqaansato u diidaya waa qofkii ka hufi lahaa macnaheedu waxa weeyaan waa inuu isagu markaa noqdaa qof nadiifa ilaahay muxuu yidhi dadka masamaha faraysaan idinkuna maxay samayn maysaan maxaa loogu gabagabeeyey afalaa tacqiluun maanka miyadan isticmaalayn baa ilaahay leeyahy aqoontu waa inay wax beddel samaysaa aqoontu waa inaanay noqonin in meel durugsan laynaga hago waxaynu u baahanay inaynu xorowno xornimadu ما ها بقعة دولو بنان أو ده فردو لا ده حرب أنو دولة هبلايا نلاقيها ما ها تا حرنمدو هنا العقل جاكو حرية هاي نلاش واحد أدور ربطين الثمين كريسو واحد دني كوجو تشرين نتكتجي كرتو ولو عندك لا يبو في ناس آخر ناس
waxaan ku soo koobayaa marka aqoon-yahanimo waan isku dayay inaan ku ag warwareego bal waxa ay sheegayso wax ka mid ah inaan tilmaamo waa kaa aynu leenahay inuu tooj sido dadka u ifinaya toojka wuxuun baana sidi kara qof garaadkiisa caqliyeedna uu xor yahay kayd aqoomeedna leh waxa uu sheegayaana ay ka runto noloshiisa ka muuqato intaa haddaa heshaan adduunkanna magacba kaga tegaysaan iyo maamuus aakhirana waa liibaanaysaan waana inta ay ambiyadu qaban jirtay iyo dadkii hormoodka u noqday umamkooda dhammaantood dadkii umamkooda hormoodka u noqday aqoon-yahanka u ahaa waa waxay sameeyeen innaga waxaa ina baylihiyey dadkaynu aqoon-yahankaynu daba soconnay aqoon-yahankeenni meel cidlaabuu ina dhigay ka soomaali ahaan waxa ina qaybiyey ina burburiyey xadka ina gaadhsiiyey waa aqoon-yahankeennii waayo aqoontu sidaan noqonin tii iftiinka ahayd ee bulshada ifinaysay aqoon ku xoogsiya unbay noqotay ka ugu fiican isagu ku xoogsada oo wax ku kororhsada laakiin dadka iyo bulshada iyo dadka aan midnaba waxtar u lahayn aqoon xorriyad leh oo horumar keeni karta oo rabbigeedna rumaysan aakhiradeedana ka fekeraysa adduunkeedana dhisaysa ayaynu u baahanay sala allahuma cala nabiyi muxamedin wcala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin